bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal halkani waa janalka nabad iyo nolol kusoo dhawaada warka warbaahintan qodobadaan idiin soo gudbin doono haddii allah awooda la ogolaado waxaa kamid noqonaya taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya oo gaaray degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud, wasiirada maamul goboleedka puntland oo la dhaariyey, jubbaland oo si carale uga hadashay hadal kasoo yeeray Francisco Madera xilliga uu furmayo kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo shaac laga qaaday. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin soo gudbinayaa saaxiibayaal. Fadlan channelkan subscribe calaamada kambalka furta muuqaalkana saaxiibayaal gareeya. Ayna ku bilownaa taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya General Oday Yusuf Raage ayaa waxa uu gaaray degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud xilli maalmihii la soo dhaafay uu ku sugnaa deegaanada maamulka dowlad goboleedka Galmudug. Taliyaha ayaa waxa halkaasi kulamo kala duwan kula qaatay saraakiisha ciidamada xooga dalka Soomaaliya ee ku sugan Caabud Waaq, waxaana uu sheegay in la qaadi doono howlgalo ka dhan ah xarakada Al-Shabaab, waxaana uu sheegay in deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ay kaga sugan yihiin ciidamada Al-Shabaab laga saari doono. Waxaana uu sheegay taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya in ay bilaabi doonaan ama ay wajihi doonaan dagaal xoogan oo Al-Shabaab looga saarayo. Taliyaha ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ku sugnaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana kulamo kala duwan halkaasi kula lahaa saraakiisha ku sareysa ciidamada xooga dalka ee ku sugan maamulka dowlad goboleedka Galmudug. Al-Shabaab ayaa waxay gobolka Galgaduud iyo Mudugba uga sugan yihiin degmooyin iyo deegaano fara badan oo ka tirsan maamulkaasi, waxaana goor dhaweed hadal ka soo baxay wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi uu sheegay inay bilaabi doonaan howlgal Al-Shabaab looga sifeynayo deegaanada ay gacanta ku hayaan. Golaha wasiirada cusub ee maamul goboleedka Puntland ayaa la dhaariyey. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabadda dhaarinta wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada cusub oo dhowaan la magacaabay, waxaana halkaasi si rasmi ah xilalkoodii ula wareegay wasiirada cusub ee la dhaariyey. Munaasabadda dhaarinta ayaa waxay ka dhacday qasriga madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland ee ku yaala Garowe, halkaasi wasiirada cusub ay sheegeen in ay dardar geli doonaan howlaha u yaala, waxaana ay sheegeen inay si hufan ula shaqeyn doonaan madaxda sare ee maamul goboleedka Puntland. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo ka hadlay munaasabadda dhaarinta wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada cusub ayaa waxa uu marka hore xukuumadda iyo shacabka dowlad goboleedka Puntland uga tacsiyey geeridii ku timiday Allah u naxariistay wasiirkii dekedaha iyo beeraha dowlad goboleedka Puntland Ismaaciil Diiriye, kaasi oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho, waxaana uu geeriyooday caabuqa COVID-19 kaasi oo maalmihii la soo dhaafay oo uga xanuunsanayay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa wasiirada cusub ee maanta la dhaariyay kula dardaarmay inay waajibaadka loo idmaday iyo mas'uuliyadda la saaray ay si wanaagsan u gutaan, isagoo Alle uga baryay inuu xilkaas u fududeeyo mas'uuliyadda cusubna uu la garab galo. Xubnaha golaha wasiirada ee ku-xigeenada ayaa waxaa kamid ah maanta la dhaariyay kow Injineer Cabdulaahi Cali Xirsi Timcad, wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Puntland, Injineer Maxamuud Xaaji Saarax, wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, Cabdulaahi Ibraahim Warsame, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, Ismaaciil Saleebaan Geele, wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga, Axmed Siciid Ismaaciil, wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Puntland, Sayid Ismaaciil Maxamed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo beeraha iyo dowlad goboleedka Puntland. Waxaa sidoo kale maanta la dhaariyay Cabdiqani Axmed Ismaaciil, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta, xiriirka caalamiga ah iyo horumarka dhaqaalaha dowlad goboleedka Puntland. Wasiiradan cusub ayaa waxaa looga fadhiyaa shaqo adag maadaama la saaray xil weyn, waxaana la doonayaa in xilkaasi u gutaan si hufan, waasta uu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani. Marka laga soo tago dhaarinta golaha wasiirada cusub ee maamul goboleedka Puntland ayaa waxay ku soo aadeysaa dhaarinta wasiiradan xilli uu jiro khilaaf xoogan ee u dhexeeya madaxda sare ee dowlad goboleedka Puntland, taasoo gaartay xilli madaxda sare ee maamulkaasi aysan salaanta qaadin, waxaana maalmihii la soo dhaafay soo shaabaxay khilaaf xoogan ee u dhexeeya madaxdaasi waa Siciid Cabdilaahi Dani iyo Cismaan Cilmi Karaash. Jubbaland ayaa si carale uga hadashay hadal ka soo yeeray Ambassador Francisco Madera, kaasi oo ah taliyaha ciidamada Midowga Afrika ee loo soo gaabiyay AMISOM kuwaasi oo jooga Soomaaliya.
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Puntland Maxamuud Sayid Aadan iyo xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo saxaafadda la hadlay waxay si adag u cambaarayeen hadal ka soo yeeray wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madera kaasi oo sheegay inuu gef weyn u geystay mid ka mid ah beelaha Soomaalida deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Ambassador Francisco Madera ayaa kulankii golaha amniga ee qaramada midoobay ee dhowaan qabsoomay waxa uu ka sheegay isagoo ka hadlayay arrimaha dowlad goboleedka Jubbaland in madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu la heshiiyay xubnihii mucaaradka ee beeshiisa kaliya hase yeeshee halkaasi ay ka caroodeen madaxda ugu sareysa maamul goboleedka Jubbaland iyo xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo kol hore ka mid ahaa madaxda isbeddeldoonka Jubbaland balse dhowaan la heshiiyay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya uu ku tilmaamo arrimaha gudaha Soomaaliya isagoo si gaar ah u magac dhabay beel Soomaaliyeed isla markaana aysan ahayn mid sax ah waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay qalad uu galay Francisco Madera. Waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in heshiiskii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo xubnihii isbeddeldoonka uu ahaa mid siyaasadeysan balse uusan ahayn mid beeleed loogana baahan yahay dowladda federaalk Soomaaliya iyo xildhibaanada golaha shacabku inay dib u eegis ku sameeyaan hadalkii Francisco Madera. Dhinaca kale xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalk Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in Francisco uu ku kacay arrin aad looga xumaado waxaana uu sheegay in dowladda federaalk Soomaaliya arrintaasi baaritaan ay ku sameyso. Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya u jooga Ambassador Francisco Madera weli dhankiisa wax warahi ama jawaab ah kama uusan bixin eedeyntan ay u jeediyeen madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo kamid ahaa madaxda isbeddeldoonka Jubbaland balse dhowaan heshiis la saxiixday madaxweynaha haatan talada haya ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Guud ahaan warka ka daawaneyseen channelka Nabad iyo Nolol waa naga intahay nabadgelyo fadlan muuqaalkan saaxiibayaal la garaya channelkan subscribe waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan nabadgelyo.